suuqa madiina intuu galaba oran jiray halkayna fariisiya ilaahay saacadaha rumeeyna kaalaya abdullah ibn umar intuu yimaado tufayl buu ku oran jiray in mar iraac buu oran jiray xageen tagnaa suuqan tagaynaa suuqa iyo soo baxayeen hadana maalin kale uu yiri mar iraac hadana maalin saddexaad buu yiri iraac wa abdullah ibn umar ibn umar ibn khattab iyo tufayl oo taabici ahaa maalkaas markaa dhowr cisho markuu suuqi ku celceliyay oo ku celceliyay buu keenay ibn umar suuqa waad nagaysaa maalin walba badeecadna kama soo iibsatid badeecadna uma iibgeysid badeecadna ma soo baayacdid meelaha dadku fadhiyaan nama fadhiisisid war halkan inna fadhiisi buu halkan noogu sheekay buu ka yidhi oo halkan diinta nagu bar sheekada saxaabadu diin bay ahayd marka ibn umar baa ku yidhi waraa kaagan caloosha buuran li inma naqdu min ajli as-salaam waxaanu ka lahaynaa waxa weeyaan dadka inaan salaano baanu ka lahaynaa buu ka yidhi assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu baanu ka lahaynaa waa duco weeyaan ducadaa baanu ka lahaynaa muslimiintaanu ducaynaynaa iyaguna way noo ducaynayaan boqol qof baanu ducaynaynaa boqolkaasi way noo jawaabayaan waa duco laga yaabaa boqolka awliye ilaahay intay ku dhex jirto in ilaahay ducadooda noo aqbalo salaada muslimiinta la siiyo waa maxay salaanteenu assalaamu calaykum nabadgelyadii ilaahay iyo naxariistii ilaahay iyo barakaadkii ilaahay korkaaga ha ahaadaan kii kale muslimka waxa uu ku leeyahay adigana nabadgelyadii ilaahay iyo naxariistii ilaahay iyo barakadii ilaahay korkaaga ahaadaan buu ku leeyahay salaantaas la soo kala haynaa boqol qof baan salaamaynaa 200 qof baan salaanta ummadda salaamaynaa way noo jawaabayaan waxay garanayeen saxaabadu in salaanta muslimiinta ay la dhaxmareen ilaahay intuu u aqbalo inay nabadii helaan oo naxariistii helaan oo barakadiina ay helaan inagu bagaashka iyo badaacada iyo adduunyada loo kala lahaa mooyaane sunnaha nabiga loo kala lahaa oo lagu noolaan laga ma dhacsana maanta salaantaas lagu dhargaya